السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إسلادهاي ويل ير oo shan jir ah oo ka lumay ehelkiisii iyo reerkiisii asaga oo garanaynin wax ka baxsan magac hooyadiis iyo kuwa walaalihiis kadibna tareen u qaaday magaalo aad uga fog tuuladii uu ka soo jeeday. intaas oo kaliya ma ahane sanad kadibna loo sii bixiyay wadan ka baxsan wadankiisa oo loo dhoofiyay masaafo aad uga fog iyo wadan aad uga fog wadankiisa. ma isleedahay wiilkaas yarkaahay wuxuu dib u heli doonaa ehelkiisii iyo dadkiisii. qisadana maanta waxay ku saabsan tahay wiil lagu magacaabo Suruu oo ka soo jeeda dalka Hindiya. wiilkan wuxuu reerkiisa ka lumay asagoo 5 sano oo kaliya jira. reerkiisu waxay ahaayeen reer aad faqiir u ah oo ku nool tuulo aad u yar oo ku taala bartamaha dalka Hindiya. sheekada lumitaanka Suruu waxay ku bilaabatay kadib markii goor galaba israaceen asaga iyo walaalkiis ayagoo raadinaya waxa ay cunaan iyo shilimaad dadka ka dhacay iyo waxyaabo la mid ah maadaama ay ka soo jeedeen reer faqiir ah ayna aad u gaajaysnaayeen. muddo markay suuqa wareegayeen ayay waxay galeen stationkii tareenka ama meesha tareenku istaago ayagoo raadinaya waxyaabihii ay u soo baxeen. wax yar kadib waxaa halkaas ku gamay ama hurda qabatay Suruu oo aad u yaraa sida aan idin sheegaba 5 jir ahaa. kadibna walaalkiis wuxuu seexiyay ama uu jiifiyay kuraasta lagu sugo tareenka oo ku taala stationka tareenka. halkaasna wuxuu yiri si jiifo waa ku soo laabanaya sidii ayuu walaalkiis uga tagay. muddo yar kadib Suruu hurdadii ayuu ku naxay kadibna wuxuu ku booday tareen taagnaa oo albaabadu u furnaayeen dadka buuxeen oo isleeyahay walaalka ayaa ku jira. sawirada aad ka aragteen tareemada Hindiya waad aragteen dadku sida uga buuxaan waxa laga yaabaa halka tareen oo kaliya inuu wado dhowr kun oo qof. Suruu intuu walaalkii ka dhex raadinayay tareenka waxa tareenkii u qaaday Suruu meel aad uga fog oo kumanaan kun oo kiiloomitir u jirta tuuladii yarta ahayd oo ka soo jeeday. gaar ahaan tareenku wuxuu ku ekaa oo uu ku dajiyay magaalada la yiraahdo Calcutta. waa magaalo aad u weyn oo malaayiin dad ay ku nool yihiin oo uusan qofna ka garanaynin. meeshuu ka yimid ma yaqaano, magaalada uu yimid ma yaqaano, wax alla wuxuu ka garanayo ma jiro. waa cunug 5 jir ah wuxuu kaliya yaqaanaa magaciisa, magac hooyadiis iyo magac walaalihiis oo kaliya. Suruu muddo ayuu ku dhex wareeray magaaladaas oo darbijiif iska ahaa. wuxuu bilaabay inuu ciyaalada yaryar ee darbijiifka ah ee cuntada la soo tuuro iyo waxyaabaha la midka ah iskaga nool inuu iska dhex galo. dhowr mar ayuu ku sigtay inuu ku dhinto biyaha webiga oo ciyaalka kale iyo asaga ay ku ciyaarayaan. nasiib wanaag muddo yar kadib Suruu waxaa soo qabtay booliska aruuriya ciyaalka darbijiifka ah kadibna wuxuu geeyay xarun lagu xanaaneeyo ilmaha agoonta ah ama ilmaha soo lumay oo aan dadka ama ahalka haysan. Suruu halkaas ayuu 1 sano ku jiray. markuu 6 sano gaaray ayaa waxaa goobtaas yimid reer u dhashay dalka Australia oo raadinaya ilmo ay soo korsadaan. Suruu oo xilligaas sida idin sheegay 6 jir ahaa oo muddo sanad ah ku jiray meeshaas ayaa waxaa loo saxiixay inay qaataan reerkii Australiyaanka ahaa ee u soo dhoofay inay ilmo ay soo korsadaan ka soo qaataan Hindiya. Suruu nasiib wanaag iyo nasiib darro miday tahaba waxaa loo dhoofiyay dalka Australia waxaana qaatay reerkaas Australiyaanka ah. mucjisada sheekadan ku jirta waxay tahay Suruu inuu reerkiisii dib u helay 26 sano kadib. haddaba sidee ku dhacday ilmo 5 jir ah oo wax alla waxa uu ka garanaya aynan jirin meesha uu ka soo jeedo kadibna loo dhoofiyay wadan kale waliba ku noolaa 26 sano inuu dib u helo reerkiisii iyo familkiisii. waa qisada ka dhigtay Suruu in sheekadiisu ay noqoto sheeko la yaab leh oo filimaan iyo dokumentariyo laga sameeyo asaguna oo in badan saxaafadda iyo miidiyaha kala hadlo. haddaba Suruu sidoo reerkiisu ku helay, reerkiisii maxay ku sugnaayeen, xagee ku dambeeyeen, hooyadii ma nooshahay, walaalihii ma nool yihiin, meeshii ma degan yihiin. arrimahaas oo dhan ayaa sheekada Suruu xiiso badan u yeelay. Suruu dugsiga hoose dhexe iyo sare ilaa jaamacad ayay ka bixiyeen reerkii Australiyaanka ahaa oo la noolaa. waliba nasiib wanaag waxaa reerkaasi hore u haysteen oo ay korsadeen wiil kale oo ka soo jeeda dalka Hindiya oo ay iyaguna sidoo kale ka soo qaateen meelaha carruurta lagu xanaaneeyo. halkaas oo uu ka helay walaal u muuqaal eg, u midab eg oo u bedeli kara amaba u gali kara booskii walaalihiis ilaa inta uu dib walaalihii uga helayo. wuxuu ku soo koray family uu ku leeyahay
walaal walaalihiis u eg iyo reer hooyo iyo aabbo u noqday oo ka fakerayay noloshiisa iyo qaabka ay u xanaaneyn lahaayeen. reerkii Suruu qaatay ee Australiyaanka ahaa aad iyo aad ayay ugu dadaaleen. waxay ka bixiyeen dugsi hoose dhexe ilaa sare ilaa uu jaamacad galay oo uu gaaray dhowr iyo 20 sano ama 20 sano uu gaaray. xilligaas Suruu waxa u bilaabatay qorshe uu ku raadinayo reerkiisii iyo hooyadii uu aad u jeclaa. dhowr iyo 20 sanana uusan il saarin, uusan xabadka gelin, uusan dhundhunkan. waa dareemi kartaa qof hooyadii weysnaa intaas oo sano kadibna meel alla meel u raadiya aan garanaynin. aad ayay u xanuun badan tahay markaad hooyada muddo dheer moogaato. waxaad dareemaysaa in qayb jirkaaga kamid ah ama qayb qalbigaaga kamid ah ay maqan tahay. ma aan hooyo oo kaliya laakiin aabe iyo dhammaan ahalka, laakiin hooyo waxay ka saameyn badan tahay cid kasta. haddaba Suruu wuxuu bilaabay arrin la yaab leh oo u ekeed inay tahay mustaxiil inuu ku helo reerkiisii. waxayna ahayd in uu ka baaro sawirada maskaxdiisa ku kaydsan ee uu ka haysto tuuladii yarta ahayd oo uu ka soo jeeday. sawiradaas waxaa ka mid ah meeshii tareenku mari jiray ama stationkii tareenka uu istaagi jiray iyo wadadii tareenka iyo buundo yar ama bridge ka gudba webiga dhex mara tuulada, iyo sidoo kale dhul beereed iyo dhul aad u cagaaran oo ku xeernaa tuuladiisa. waxa kaliya uu ka xasuusto tuuladaasi waa intaas oo kali ah. wuxuu bilaabay inuu tiriyo qadadka tareenka ee ka baxa ama soo gala magaalada Calcutta. wuxuu bilaabay inuu isticmaalo barnaamijka Google Earth oo lagu baaro ama satellite-ka ah oo dhulka adduunka oo dhan ay ku jiraan oo meel kasta aad ka baari kartid dhulka. laakiin wuxuu ku caawin karaa oo si fudud ku caawin karaa markaa garanaysa meesha magaceeda ama aad awoodid inaad maapka ka soo saartid meesha aad doonaysid. Suruu wuxuu bilaabay inuu tiriyo qadadka tareenka ee ka baxa magaalada Calcutta oo uu fiiriyo sawirada tuulo kasta oo qadadka tareenka Calcutta ka baxa ay maraan. qadadka tareenka ee ka baxa magaalada Calcutta waxay maraan boqolaal tuulo. wuxuu raadinayaa sawirada hal tuulo oo ka mid ah wadan 3 milyan oo kiiloomitir oo isku weera kor u dhaafaya, ayna ku nool yihiin 1 bilyan iyo bar dad ah. waa sheeko u eg mustaxiil, laakiin sheekada Suruu waxay tusinaysaa qofka hadduusan quusan inuu ka salgaari karo danta uu leeyahay. wuxuu bilaabay markuu jaamacadda ka soo laabto inuu kombiyuutarka dul fariisto, kadibna uu furo barnaamijka Google Earth asagoo baaraya. habeen walba wuxuu qaadaa oo bilaabaa inuu daba socdo khadadka tareenka ee ka baxaya magaalada Calcutta mid kamid ah. khadkaas wuxuu sameynayaa tuulo kasta oo khadku maro sawiradeeda ayaa waxay ku jiraan Google Earth. marka inuu sawiradaasi ka raadiyo hal sawir oo soo xasuusiya tuuladiisii yarta ahayd, meeshii stationka ahayd ee tareenku istaagi jiray, bridge-kii dul mari jiray webiga, iyo tuuladii yareed uu ka soo jeeday ee beeruhu ay ku xeernaayeen. shaqadaas ayuu wuxuu waday 6 sano oo xiriir ah. kadibna waxaa la gaaray mucjisadii ugu dambeysay ee reerkiisa ku heli lahaa Suruu. habeenada kamid ah asagoo khadadka tareenka ee Calcutta ka baxa mid kamid ah daba socda oo tuulo kasta oo khadkaasi maro baaritaan ku haya, ayuu wuxuu isha ku dhuftay bridge uu dul maro khadka tareenka oo aad ugu eg buundadii ama bridge-kii ku taalay tuuladiisa. markuu ku sii socday baaritaanka sawirada tuuladaasi waxaa u soo baxay khadkii tareenka ee mari jiray tuuladiisa iyo waliba stationkii weynaa ee uu ku yaqaanay tuuladiisa. markuu sii baaray tuuladu waxay aad ugu eg tahay tuuladii uu ka soo jeeday ee beeraleyda ahayd ee beeruhu ku xeernaayeen, bridge-kii ama buundadii dul mari jirtay webiga dhex mara tuulada, iyo waliba stationkii oo ka soo raacay tareenkii oo ku lumay dhowr iyo 20 sano ka hor. Suruu maalintaas ayuu wuxuu go'aansaday inuu u safro dalka Hindiya si uu u raadiyo hooyadii iyo walaalihii iyo ahalkiisii. wuxuu ka degay tuulo yar oo lagu magacaabo Khanwa oo ku taala bartamaha dalka Hindiya oo ahayd tuulada uu ka soo jeeday Suruu. tuuladii markuu tagay oo dadkii wareystay waxaa loo sheegay meesha hooyadii iyo ahalkiisii ay deganaayeen ayaa loo tilmaamay, laakiin nasiib darro goobtii markuu soo istaagay ay deganaan jireen reerkiisa guriba kama dhisna, waa goob bannaan, reerkiisana meel alla meelay aadeen ma garanayo.
wuxuu leeyahay suruu markaan soo istaagay goobtii gurigeennu ahaa waxaan isweydiiyey hooyaday ma nooshahay, walaalahay ma dhinteen ma nool yihiin. waxaa laga yaabaa in hooyaday mar hore iska dhimatay, walaalahay meelo kale la geeyey. suruu oo aad u murugaysan ayaa wuxuu bilaabay inuu dadkii weydiiyo dadkaasi meesha ay ku dambeeyeen. nasiib wanaag ugu dambeyn wuxuu helay dad ka warhaya sheekada lumitaankiisa, yaqaanana hooyadii iyo ahalkiisa. suruu sidaas ayuu hooyadiis ku raadiyey. nasiib wanaag suruu wuxuu la kulmay hooyadiis oo 60 jir ah oo uu xabad ka geliyey 26 sano kadib. faamilkii suruu oo dhan ayuu la kulmay, laakiin farxadda suruu waxaa qayb ka jabiyey ama qayb ka dhaawacay in walaalkii ka weynaa oo aad u jeclaa oo booska aabihiis uga jiray, maadaama aabihii iyo hooyadii ay kala tageen isagoo yar, aabihiisna uusan dib dambe u arkin. walaalkiisa ka weyn wuxuu ugu jiray booska aabihiis. wuxuu leeyahay markuu gacanta ugu dhagan yahay, markuu ila joogo waxaan dareemi jiray ammaan, waxaan dareemi jiray in aabbahay oo kale uu ila joogo. nasiib darro waxaa dhacday in walaalkii ka weyn suruu uu markii uu waayay suruu oo uu lumay inuu bilaabay inuu cararo oo uu raadiyo, kadib uu ku dhacay khadkii tareenka, halkaasna uu ku dilay tareenkii. habeenkaas hooyadiis waxa u soo hoyatay murugo ah in kii weynaana uu dhintay, kii yaraana uu lumay oo la waayay. bal qiyaas hooyo labadeedii carruurta ahayd, midna dhintay midna la la'yahay, markeedii horena ku sugneed xaalad faqri iyo nolol aad iyo aad u liidata. suruu wuxuu leeyahay hooyaday habeenada qaar waxaan arki jiray iyadoo ilmeynaysa oo qolka ku jirta oo ka fakaraysa waxa ay nasiin lahayd iyo sida ay noo noolayn lahayd. ilaahay hooyooyinkeena ha u naxariisto. hooyo mar kasta meel ay joogto dembigoodana ha dhaafo. meel kastoo hooyo joogto waxa waaye waxay ka fakaraysaa nolosheeda in ka badan ilmaheeda iyo sida ay ku noolaan. inkastoo aabbayaalka naftirkoodan ay sidaas yihiin, laakiin haddana hooyada qalbigeedu waa mid aad iyo aad iyo aad ugu jilicsan carruurteeda, oo laga yaabo inay nafteeda iyo wax walba u ilowdo siday ilmaheeda ayaga u badbaadin lahayd oo meel u gaarsiin lahayd. sheekadan waxaan ka baranaynaa in qofka haddii uu hadaf leeyahay oo una ka quusan uu ka salgaari karo, in suruu uu reerkiisa dib u helo waxay ku dhacday sabarka iyo adkaysiga iyo go'aanka uu ku qaatay inuu dib u helo hooyadiis. suruu hadda waxaa la dhihi karaa wuxuu leeyahay 2 hooyo oo si markii loo fiirsana farxad ah, si markii loo fiirsana laga yaabo inay caqabad noqoto. maxaa yeelay hooyo kasta tii dhashay ee Faatima iyo tii soo korisay labadaba waxay ku riyoonayaan inuu ayaga hayn doono mustaqbalka, inta noloshooda ka hartan oo xanaaneyn doono oo uu garab joogo. marka suruu waxaa u taala in uu 2 hooyo u dhaxeeyo, kadibna mid walba ay ka sugayso xanaano iyo inuu noqdo wiilkeeda. waxaan aad ula yaabay Faatima markii ay isu yimaadeen, hooyadii soo korisay suruu iyo maama Faatima ay isku imaadeen, in ay tiri waxaan ula jeedaa hooyo mar walba qofka adiga wanaag kuu galay waxay u aragtaa inuu adiga wanaag kuu galay, sidaa darteedna waxay rabtaa inay qalbiga hooyada soo korisay ee waqtiga ku soo bixisay inay dejiso. waxay leedahay maamada dhashay suruu ee Faatima, waxaan ku fakarayay mar walba inuu dib iigu soo laaban doono suruu, sidaa daraaddeedna dhowr mar waxaan diiday inaan ka guurno goobtii aan deganayn. maxaa yeelay maskaxdeeda waxaa ku taagneed, waxaan dhihi jiray mar kasta haddii uu suruu soo laabto oo uu naga soo raadiyo meeshii uu naga ogaa ee naga waayo, siduu nagu heli doonaa. marka sidaa daraaddeed waa inaanan ka guurin goobta aan deganahay si suruu dib noogu helo. intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ku saabsanaa suruu iyo sheekadiisa. haddaad sheekooyin noocan oo kale xiiseynaysid, waxaan kaa codsanayaa barnaamijkan inaad la wadaagtay saaxiibada. sidoo kale qisooyin ama sheekooyin xiiso badan haddaad hayso aad og tahay, waxaan kaa codsanayaa inaad ila soo wadaagto. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.